السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka soo baxay salaadii masaajidkaasaan ku tukaday oo ka imaaradiisa ayna meeshii lagu tukanayay ee gudnayd arka aniga wadada kaleeta wadadeenaas ayaanu soo galnay yacniyey maxay inoo fududeeyo maanta markaa inta daaday garan maayo laakiin waa ilaa 10 sentimitir way deeyeen baan malaynayaa average 10 sentimitir maanta waxa weeyaan jawigu soo arkaysaan taxaddar buu u baahan yahay gaari wadis taxaddar bay u baahan tahay waxaa la yidhi muxuu odayga baa la yidhi habarta calanka loo saar mayahay amaadi Trump soomaalidii waxbuu ka dhex arkay rinkiisii iyo soomaalidii baa islaayay oo maqasheen baan filayaa soomaalidii wuxuu yidhi Minneapolis way meeshaas magaaladaas Minnesota miyahay Minnesota way la wareegeen buu yidhi way qabsanayaan marka waxbuu cidii ku soo qaranayaa waxyaalo badan oo ninkani waa ciyaar suuq waa
maaha madaxweyne moogta yaa xisbiga wakiil ka yahay waxa wakiil ka yahay iyo midna ma leh waa xisbigii buu dadka ku dirayaa immigrantiga oo dhan buu leeyahay ayuu ku kacsan yahay marka waxay noqonaysaa inay xisbigaas inay immigrantiga dadkuna immigranti way u badan yihiin hadda waa ka Venezuela aadsadee halkaa ka barkiciye sideedaba waddankan waa imperialist moogta waddan markuu xoog yeesho sidaa unbuu sameeyaa moogta ilaa iyo quwadiisa ilaahay dee dhulka dhigay waa imperialist xooggaa weeyaan iyo quwaddaa uu leeyahay ayaa wax waliba ku kalifaysa marka waddanka yare la yidhaahdo ee cunaqabataynta ku hayeen intaasoo sano ee rabaan hadda inay dagaal ku qaadaan yaa isagoo barnaamijyadiisa haysta ku qarinaya uu rabaa inuu ku qaado dagaal Venezuela president Maduro ayuu rabaa inuu meesha shaqada ka saaro shalay wuxuu yidhi hawadaas waddankaas way xidhan yahay cid mari karta ma leh marka Trump iyo wuxuu wado ilaahay baa og ilaahay shartiisa haynaga kaafiyo ilaahay shartiisa haynaga leexiyo maaragta dadka Soomaalida uu saaran yahay
jawiga waad arkaysaan dhinacyadahayna marka Trump horaan uga sheekaynay Dr. Jeffrey Sachs ninka la yidhaahdo aqoonyahanka weyn ee dhaqaalayahanka ah reer Maraykan ayaa maalin dhow meel ku hadlayay Koonfur Afrika horta shirkii Koonfur Afrika muu tegey shirkid 20 waddan ee adduunka ugu dhaqaalaha badan isagaa tooshka loo dhiibi lahaa waa nin daanan yaa u calayo wuxuu ku toogan yahay waddankii wuxuu la hadhay dadkii adduunkii oo dhan baa nacay saaxiibayaal waa kaas jawigu waddadu waa xoogaa waa u dhalaalay waana la xaaqay waana jidka hadda waxa weeyaan maridda ay baabuurtu marayso way fiican tahay waddadu way wanaagsan tahay dhib ma leh laakiin dee waana laga shaqeeyey waa la xaaqaayo waddan dawlad leh wey dawlad
dawladdu waxa weeyaan dawladdu way kala sarreysaa way kala hooseysaa way kala amar qaadataa chain rule wax la yidhaahdaa jira hadda anigii shaakayga iga warramayey saakeeto
saaxiibayaal aan idin kala dhex baxay jawiga gaariga imika soo dhaafay waa kaa cusbadii buu dhulka ku shubayaa cusbaa dhulka lagu daadiyaa اسمع كسرعة وتغير حديدة أول حاجة ما تكدس هنا ayuu soo sheegay nin dhinaca marayay taasaan khatar ku galay ilaa shilka lagu galo waxaasaa ka mid ah yar bay noo dhiman
يا واي دمان الساقل كا هلكا سين كسوق بكوين صاحبي